saraakiil ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo duubabka dhaqanka magaalada Cadaadii iyo deegaanada hoos yimaada ayaa gaaray deegaanadii ay kooxda Al-Shabaab bilowgii bishan ay ka fuliyeen weerar qaraxyo ah oo ay la beegsadeen ceelasha biyaha iyo isgaarsiinta kulan ay ku yeesheen magaalada Cadaado ayaa ku dhamaaday isfaham ku aadan in la xoreeyo dadka iyo deegaanada ay dhibaatada ku hayaan kooxdani kuwaasi oo isku diyaarinaya sidii loo weerari lahaa deegaanadaasi saraakiisha ayaana gaaray deegaanadii ay dhawaan dhibaatada u geysteen kooxdani gabaabsiga ah dadka shacabka ah oo garab ka helaya maamulka galmudug iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa isku abaabulay sidii ay u curibtir lahaayeen kooxdani diidan nolosha dadka islaamka ah waxaana hadda dib loo howlgeliyay ceelbiyoodkii ay ka qarxiyeen deegaanka Cadakibir iyadoo ilaa iyo iminka ay maqan tahay isgaarsiintii deegaankaasi oo iyadan ay qarxiyeen imaatinka saraakiishani ka tirsan ciidamada kala duwan ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku soo beegmay xilli dhammaan dadka reer miyiga ah ee xoolihii ay ka dhaceen kooxdan ay ku dhawaaqeen inay la dagaalamayaan kuna weerarayaan meelaha ay ku dhuumalaysanayaan nimankii dhibaatada noo geystay nooma dheera annaga waxaan diyaar u nahay inaan ku dhaqaaqno oo meeshii ay joogaan aan tagno laga bilaabo saacadaas xagga inaan u socono maana wax xagga naga jira lama arko Jeylaani Xasan Cusmaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed deegaanka Cadakibir